ururka goglo gurigaaga aakhiro ayaa dharkii ciidda u qaybiyay konton ka mid ah hooyooyinka danyarta ah ee ku nool magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu guddoonsiinayay dharka ciidda hooyooyinka danyarta ah maamulka degmada Burco mas'uuliyiin ugu horreynba waxaa faahfaahiyay dharkaasi loo qaybiyay kontonkaasi ka mid ah hooyooyinka danyarta ah ee ku nool gobolka Togdheer gudoomiyaha ururkaasi iyo sidoo kale xogayaha ururka waxay walaalayaal ayna ogsooneen hore ula soconay ururka goglo gurigaaga aakhiro inuu markasta u taagan yahay mabaadi guud oo ay ugu horeyso faafinta dacwadda daryeelka masaajidda iyo dayactirkooda iyo nadaafintooda iyo gacan ku hayntooda iyo sidoo kale markasta kaalmaynta iyo garab istaagga dadka inta jilicsan ama inta markaa u baahan in la garab istaago waxaan halkan fariin iyadana aan oran lahaa qof kasta oo magacan iyo barnaamijkan uu gaaro waxaan codsi dheer ka codsanaynaa inuu nagu barbar istaago waayo himilada aanu ka leenahay way ka fog tahay inaanu 50 hooyo 100 hooyo 200 hooyo inaan ku ciidino way ka fog tahay xaqiiqatan way ka fog tahay waxaan idinkula talinayaa idinku waxtan hooyooyinka mid baan ka codsanayaa barnaamijkan hami intaan ka sareeyaan ka leenay dhamaantayo ee inuu ilaahay hamigeyga noo rumeeyo inad aaminta noo tiraada barnaamijkan hami intaan ka fog baan ka leenahay waxaan ka leenahay inaan hooyo kasta oo dan yar inagu xisaabtanto ina ilmo kasta agoona waxbarashadiisa anaga uu nagu xisaabtamo in uu nagu xisaabtamo qof kasta oo laxaadkiisa ka naafaahay aragtida aanu maanta ka leenahay ma aha mid intaan ku kooban aragtida aanu ka leenahay waxa weeye gobolka Togdheer oo dhan nadaafada masaajidada inaan gacanta ku qabano dhankoodana qaar ka mid ah hooyooyinka ka faa'iideystay dharkaasi ciidda ah ee ururka goglo gurigaaga aakhiro u qaybiyay ayaa u mahadnaqay mas'uuliyiinta iyo sidoo kale xubnaha ururkaasi ee qaybta weyn ka qaatay risq wanaagsan oo xalaal ah ilaahay siyaabanu ka baryayna ilaahay gaaliya islaam ummadooda in ilaahay u sakhrana ilaahay baanu ka baryayna in ilaahay barakada rasuulka ilaahay galiyana ilaahay baan ka baryayna ugu dambeynna waxa bogaadiyay dadaalada kala duwan ee ururka goglo gurigaaga aakhiro ugu jiro dadka jilicsan xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco goglo gurigaaga aakhiro oo macnihiisu noqonayo marka Soomaalihaan la macneeyo aakhiradaada sanduuqa ka horeeya wax sii dhigo waa magacaad wanaagsan oo wax ilaahay agtiisa ku weyn dhalinyarta inta badan ka shaqeynaysa magacan la baxday ee tabaruca dadka tabaalaysan had iyo jeer u taagan waxaan leenahay jazaakumullahu khayr ilaahay jazaa'id ka sii in allaaliyo inta dhalinyarta ee magacan la baxday ee hawshan intii ay wadeenna waxaan markhaati uga nahay doonahay maamulka dawladda hoose waxaanu markhaati buuxa uga nahay inay in badan soo shaqeynayeen magaca kaliya turjumaya waxa ay wadaan magaca ayaa ka turjumaya marka magacu noqdo goglo gurigaaga aakhiro waxa weeye hamiga rasmiga ah ee ay u jeedaan ama ay doonayaan waxa weeye inay dadka baraan in ay wax sii hormarsadaan guri adduunyada waan ku haynaa aakhiro gurigii rasmiga ahna uu jiraa waa markii ugu horeysay ee hooyooyinka danyarta ah loogu qaybiyo magaalada Burco dharka ciidda kaas oo uu qaybiyo ururka goglo gurigaaga aakhiro Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi wararka telefishinka Ariel magaalada Burco.